idaacadda codka ciidamada qalabka sida idaacadda codka ciidamada qalabka sida idaacaddeena codka ciidamada qalabka sida raadiga ciidamada qalabka sidana nabigana kaleey salaatu salaam wuxuu leeyahay man sana'a ilaykum ma'rufan fakaafiuhu qofkii wanaag idin sameeyo wanaag idin sameeyo kala u sameeya haddaadan u awoodinina waxa idin sameeyeen oo kale u sameedaan waxa ugu duceedaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u barya marka sidaas daraadeed idaacadda codka ciidamada qalabka sida wax badan ay noo qabatay shacabka Soomaaliyeed wax badan ay u qabatay waxay nagu soo booqataa furmaha hore ee jiida dagaalka ayadoo tabanayso ciidamada wanaagooda iyo argagixisada arxan daradooda ayadoo ummad u cadeynayso howlgalladii ugu dambeeyay siiba howlgalkii Jannaale aniga waxaa nagula jira dagaalka wariye ka tirsan idaacadda oo aan arkay xataa mar qaar ciidanka inuu ka sii hormara oo aan dareemay geesinimada oo xabadii socota oo anaga naga horeeyay macnaha mar qaar oo nagu garab orday xabadii socota oo duwanay macnaha idaacaddeena codka ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay ajri iyo xasanaad aan la soo koobi karin Allah idinka siiyo dadaalka iyo juhdiga aad muujinaysaan waa guul u soo hoytay ciidamada qalabka sida waa meel fursad ay ku gudbin karaan fariintooda ay ku gaarsiin karaan bulshadooda ay kula hadli karaan bay heleen idaacadda codka ciidamada qalabka sida wariyaasheeda qaaliga ah oo ciidamada aad u dhiirigeliya meel kasta oo furunaha ciidamada joogaana يعني ugu taga ku booqda kuna dhiirigeliyo suugaanta qaaliga iyo Soomaalinimo wadinida marka waxa leen abaalkiin Ilaahay ahaayo nabigana kaleey salaatu salaam wuxuu leeyahay man lam yashkuru naas la yashkurullah qofkii aan dadku mahad celin Ilaahay uma mahad celiyo sida daraadeed haddaan nahay ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo furunta ku sugan waxaan u mahad celinaynaa idaacadda ciidamada qalabka sida howlwadeenadeeda iyo maamulkeeda taasna waxay muujinaysaa meesha ay idaacadda gaartay taasna waa wax aad soo dhaweynayno mar walbana howlgallada la aadan inay qayb ka noqdaan idaacadda ciidamada beenta ay markaa sheegayaan ay soo tabiyaan wax runta ah oo xaaladda marka dhabta ah meeshaas taagan fursada dahabiga dhalinyarada noo hurtay marka noo qaanqaayso noo horumarisayna waxaan leeyahay ajir aan la soo koobi karin Allah idinka siiyo idaacadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed way ku mahadsantahay shaqada hayso sida noola shaqeeyaan mar walba ay furmaha noola joogaan ayagoo shaqadooda wata macnaha meesha la joogaa uma ahan meelaha sida caadiga ah magaalada wax laga duubi karo oo goob khatar ah nin walba qorigiisa ku kamanaya asagu laakiin kaamiradiisa ku shaqeynaya macnaha xilligaas ayada geesinimada iyo farxadda iyo qaabka ay noola joogaan oo ku mahadsan yihiin shaqada hayaan